ma la socotaa qofka intuusan geeriyoon ka hor waxaa jirto reaction jirkiis uu bixin doono muddo 40 casho okay waxaa laga yaabaa inaa maqashay qofka 40kiisa ma ku jira ama 40keygii baa ku jira warnimo dhimo rabaa wax noocaas oo kale taa okay marka 40kaas maxaa laga wadaa 40kaas casho intaadan geeriyoon ka hor jirkaaga reaction buu bixin doonaa reactionadaasna maxaa kamid ah inta aadan geeriyoon ka hor aad arki doonto midda ugu horeysa waxaa waa abitaadkaaga yaraanaya hurdadaada badanaysa suuliga aad galaysa zaid bay u yaraanaysaa sababtay tahay cuntadaada way yartay cabitaankaaga wuu yaryahay ma garanaysaa sidoo kaleeto qofka waxaa leeyahay hadduu ahaa qof furfuran oo maaragtay bashaash ah oo inta galac waxaa la yidhi qofkaas uu damaya ma garatay sababtoo tahay enerjiga noocaas oo kaleetaa ma hayn doono muscleskiisa qofkana wuu daciifaya jirkiisa wuu daciifaya waxaad dareemaysaa haddaad ahayd qof murqo waaweyn oo adag hadaa ahayd jirkaaga ma sii adkaanayo waayo wuxuu isku diyaarinaya qofkaas inuu geeriyoodo marka jirkiisa wuu daciifaya sidoo kaleeto blood pressureka qofka hoos ayuu dhacayaa sida hadda aan u neefsanayno kale qofka uma neefsan doono oo neefta ayaa ku dhegdhegi doonta sida wax laga inuu soo dhaho qofka noocaas oo kale taa 40kiisa casho ku jiro sidoo kaleeto psychological jirka uu sameynayna uu yaraan doona okay cycle-ka waa taqaan galasa qofka caafimaadka soo barta ay yaqaana sidoo kaleeto calaamadaha qofka lagu arki doono waxaa kamid ah in jirkiisa uu qabow yahay nagar hada jirkeena anaga uu kulul yahay sababtay tahay shaqadiisa zaid u badan marka shaqadii way si yaraanaysaa marka si dambeeso shaqada jirka uu qabanayo way si yaraanaysaa qabowbuuna jirkiisa qofka noqon doona sidoo kale waxaa lagu leeyahay skinka qofka kalarka oo caadiga ah wuu bedelmi doonaa kalar gudud camal uu yeelan doonaa ama maxaan ku dhaca cagaar ma garat markuu qofka uu sii geeriyoonayo calaamadahaas iyo calaamado kale jira haddaba muhiimada inta ugu muhiimsan waa intaas waayo marka qofka xanuunsanayo xanuun u geeriyoodana wuu isku arkaa calaamadahan qofka aanan xanuun qabin oo iska caadi gurigiisa iska joogo oo wax shida aanan qabin calaamadaha noocaas oo kale taa baadigiisa ayaa bixin doona ma garata marka dad waxaa jira iska geeriyooda Soomaaliya hurdada ku geeriyooda ama ayagoo iska socdaan iska dhaca ma garata oo wax xanuun aanan markaas aan qabin hal mar ama kusoo booda xanuunka saa u geeriyooda calaamadahaas isku aragtid tasbiixda badso salaada badso shahaadateynka iska badso si marka aad u rumayso ashhadu an laa ilaaha illallah aad u tirahdid waa ku salaamaya waxana habaqan adigna waa geeriyo doonta anna waa geeriyo doona marka salaamu calaykum cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday qofka nafsadiisa inuu jecel yahay inuusan jeclayn waxaa lagu ogaanayaa qofku noloshiisa xulanayo qofku guursanayo baa lagu ogaan karayaa waa jeceshahay laakiin qofka ma ku xushmaynayo waa jeceshahay laakiin qofka ma ku dhaqan karaya waa jeceshahay laakiin daryeel ma ka helaysaa hadday maya tahay aad guursatid taa micneheedu waxaa waaye nafsadaada ma xushmaynaysid nafsadaada ma jeclid laakiin hadduu intaa qofka ku sameynayo aad guursato micnaheedu waxaa waaye nafsadaada jeceshahay nafsadaada meel fiican u xushay nafsadaada ku salaamay